madaxda shirkadda dhismaha ee Minara ee fadhigeedu yahay waddankaasi Kenya ayaa maanta munaasabad waxay ku qabteen magaalada Djibouti ee caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti kulankaasi oo ka dhacay hotelka Sheraton ee caasimadda Djibouti waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan ganacsatada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda dawladda waddanka Djibouti waxaana ka mid ah safiiro iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda dawladda hoose ee magaalada Djibouti madaxda shirkadda Minara Home oo ah shirkad ka shaqeysa dhismaha guryaha ayaana halkaasi waxay ku soo bandhigeen howlaha kala duwan ee shirkadoodu qabato waxaana mas'uuliyiintan oo dhawaan soo gaaray waddanka Djibouti ay doonayaan in mashaariic kala duwan oo dhinaca dhismaha kuwaasi oo ah dhismaha guryaha ay shirkadoodu fuliso Abdulqaadir Imaan oo ah gudoomiyaha degmada Bilcowse ee caasimadda Djibouti ayaa wuxuu soo dhaweeyay shirkaddan dhismaha ee Minara Home inaan horta la idin soo daawodsiyo magaalada ku fiicantiin magaaladu iminka aad bay isku bedeshay siyaasadda madaxweynuhu waxa weeyaan guryo badan ayaa la dhisay oo dad fara badan inta madaxweynuhu jooga ay ka faa'iideysteen oo guryo heleen oo reer ku unkeen siyaasadana madaxweynuhuna waa siyaasad soo dhaweynaysa u furan dadkoo dhan waxaan leenahay dareenka aad qabtaan dadka intooda fara badan way qabaan dadkuna afar bay u kacaan baleen nin mashruuc sida oo mashruuciisaasi hirgeliya oo sida tareenka la raaco oo tareenku inta wax jiidaysa waa in yar soo maaha marka dad sidaas ayaa ummadda ku jirta oo mashruuca ay keenaan hirgeliya dhaqaajiya iyo kuwa kale inta loo badan yahayna in iyagu mashruuc ma keenaan laakiin mashruuca la keeno waa aqbalkeen arrinta la keeno ay aqbalaan dadkuna intaas ay u badan yihiin waxa jira nin isagu iska maqan kuna raacayn kuna aqbalayn dibna ku geysanayn iyo xabad isagoon iyo mid iyo laba isagoon ku raacin inuu ku xagxagto doonayaan marka insha Allah waxaan leenahay soo dhawaada amnigaana ilaahay ha noo wado diyaar baan inahay xukuumad shacab iyo dawladba Sheikh Liban Ali oo ah madaxa iibgeynta shirkadaasi Minara Home ayaana ugu horeyn waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ay dadka u hayaan oo systemka loo dhisay quality-ga dhisanka waa Turkish system waay alaabta inta badan Turkiga ka keenaa guriyahana waxa uu sameeynaa weyni guri kasta wuxuu wataa qolka shaqaalaha dhiiskuiga wataa waa laba qol iyo fadhi qol shaqaalo saddex qol iyo fadhi qol shaqaalo afar qol iyo fadhi qol shaqaalo shan qol iyo fadhi qol shaqaalo iyo duplicates guriyaha iskorsaarka ah oo labada yani waa filladii oo dabaq la dhex geliyay macnaha kor waxaa jira laba qol caruurta iyo qolkii masterka hoosna waxaa jira qolkii martida iyo fadhiga laba qayb ah qaybta cuntada iyo qaybta kale iyo maarti jikadii iyo qolka shaqaalaha soo kaas waxa la duplicates waa systemka Mareykan guriyaha inta badan hadda loo sameeyo sidaas oo kale waxaan u sameeynaa in guriyihii ay noqdaan dabaq kasta markaas aan guriyo waafi aan u sameeyno aan guriyaha la iska soo horjeedin cariirina soo ku imaan guriyaha inta badan anaga aan sameeyno waa 14 dabaq ilaa 16 dabaq haddii loo baahdana waa ka badinaynaa sidaa darteed marka xagga paymentiga waxa ugu talagalna walaalayaal guri kaste qofka markuu guriga oo company-ga la xiriirayo first payment qofku wuxuu bixinayaa 30% markuu bixiyo qofka lacagta kale wuxuu ku bixinayaa muddo 4 sano afartaas sano bacdi ma 30% uu bixiyo 70%gaas waxaa la rabaa inuu ku dhameeyo 4 sano guriga wuxuu soconayaa muddo 2 sano dhismaha guriga markuu dhamaado qofkaas hadduu gaarsiiyo 70% awood wuxuu helayaa furaha in la siiyo gurigu isticmaalo asagoo guriga degan ayuu 30% guriga ku dhameynaya Sheikh Abdiraqiib oo ah xogayaha guud ee shirkadda dhismaha ee Minara ayaa halkaasi ka hadlay wuxuuna faahfaahin ka bixiyay shirkadaasi dhismaha iyo waxyaabaha ay doonayaan inay ka qabtaan waddanka Djibouti nabadu waa shay cajiib ah waxyaabaha aan la yaabay intaan magaalada dhexmaray waxa ka mid ahaa hooyooyin Soomaaliyeed oo lacag bac ku wada banaanka iska fadhiya waxyaabahan aad u la yaabay oo ragga martida aan weydiiyay bay ka mid ahayn war haweenkan maxay ahaayeen waaba kuwa banaanka iska fadhiya sariflayaasha Djibouti weeyo lacag doorkay kala sarifayaan runtii waxay ku tusi kartaa nabadda jirta qiimaheeda iyo qaayaheeda maantana waxa aad loo raadinayaa waad ka war socotaan waad la socotaan xaaladaha maanta jirta nabad baa la raadinayaa hadday nabadi jirto wax walba way iska imaan caafimaad baa imaan nolol baa imaan wax kasta imaanaya idan idinkuna waxaan aad idinku mahad celinayaa
oo runtii aan aad idinku bogaadinayaa waxa aad haysataan waa nabad cajiib ah ganacsatada iyo dadka runtii ganacsatadu shayga keli ah ay ku ganacsan karaan waa inay nabad haystaan mahadcelinta kadib iyo sida qiimaha iyo qaayaha badan ee kambanigan Minara Homes nologu soo dhaweeyay runtii shirkadahan magaalada Nairobi ee dalka Kenya dhismayaasha ka wada mashaariic aad u waaweyn oo lixaad leh ayaanu wadankaas ka hirgelinay wax dhamaaday iyo wax socda iyo wax bilow ah iyo wax dhamaan raba isugu jiraan waa mashaariic aad u waaweyn oo ilaa 1,000 guri gaadhaya waan ugu talagalay marka inaanu wadamada kale ay inaan tagno oo mashaariicdanada geeyno oo fursadaha ka jira aan fiirino baahiyahan wadankan aan ka hirgelinay guryaha wadankan aan ka dhisno oo kale qof tabar leh iyo qof aan tabar lahayn labadaba uu gataa Ahmed Abdikariin Maxamed Universal TV Djibouti